السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابي كل سنة وأنتم مقال كله يتلفزيون كأردا كيبل تي في. مقعد عبد الرحمن سلطان يوسف مقال كمان تا أصحابي إنه فلانقين إنه كوا هالنا وكل ماذا وريجا استيدا تلتن كشامبيونز ليجا هذين كأربعة اللي حمر دونا كوع ريال مدريد وقرون كودا سانتياغو برنابو كل عيار دونتا كوحدة تشيلسي iyo kooxda Milan oo martigelin doonta kooxda isku wadanka yihiin Napoli. runtii waa kulamo yani aad u adag bandhig karayna waa kulamo gaar ahaan kulanka Napoli iyo Milan xandhi karayna waa kulan wax kasta laga filan karayo marka la eego foomka Napoli horyaalka iyo kulankii ugu dambeeyay Milan oo 4-0 ku garaacday dhigooda Napoli xandhi karayna waa kulan wax kasta laga filan karayo guud ahaan kulankan muhiimadda saar doona asxaabi waa kulanka Chelsea iyo Real Madrid لكن هذين كورنا كلان كميلان iyo Napoli waa kulan yani maxalliya oo kulmin doona laba kooxood isku horyaala laba kooxood isku jigaranaya laba kooxood oo de waligood wada ciyaari jiray laakiin xil ciyaareedka Napoli xil ciyaareed yani waa koox kale koox hore loo arkay maaha waa koox runtii dhameystiran horyaalkana yani 99% ku guuleysatay shaqada ugu weyn ee Milan ay ku dadaalayso waxa weeye inay yani la ciyaarto Milan runtii waa yani waa kooxda kaliya ee labada kulanba ka wanaagsaneed kooxda Napoli sidateed Napoli cabsida kaliya haysa xweeye in Milan ay yani foomkii kulankii horyaalka kale ay la yimaadaan Napoli kulankii ugu dambeeyay horyaalka Milan ay ka guuleystay waxa ka maqnaa ciyaaryahankoodii Osimhen waxa laga yimi international break ayaa laga yimi yani focuskoodu uu maqnaabay dhig karayna lamana mid noqon marna la mid noqon maayo kulanka soo aadan ama labada kulan ee soo aadan Champions League ugu yaraan kulanka hore Milan garoonkooda lagu ciyaaraya iyaga ayaa dadaalka sameyn doona iyaga ayaa ku dadaali doona inay guuleystaan oo ay adkaadaan laakiin dhanka kale Napoli tayadooda aad u sareysa waxay ku dadaali doonaan yani difaacasho badan iyo weerar yar inta garoonkooda laga tagayo maadaama ay away yihiin yani u maleyn maayo inay isku soo wada bixi doonaan oo ay soo weerar tagi doonaan 100% sida ay horyaalka ay sameeyaan way Champions League hal khaladaad sameeyso ayaa ka saaray ma sida horyaalka oo kale oo khaladaadkaaga aad dib ka sixi karto kulankan guud ahaan waxa uu ku wareegi doonaa yani labada kooxood ayaa yani xamili karaysa cadaadiska Champions League labada ciyaartooyada waayo ciyaartooyada labada kooxood ay ka haystaan khibradooda Champions League aad u kooban yahay marka ciyaartooyo kooban laga yimaado badankoodu wax khibrada kuma laha Champions League sidateed waxay ku xidhnaanaysaa in ciyaartooyada bila khibrada labada kooxood ay haystaan sidee ayay ula dhaqmayaan kulamada istirareebka tartanka ugu weyn dunida yani xitaa iminka daawashadu maaha sida horyaalka kaliya waxa daawanaya malaayiin dad oo yani xitaa horyaalka Talyaaniga daawano kulankaas si khaas ah ay ula socon doonaan haddii nimanno asxaabay kulanka labaad ee kulmin doona kooxaha Real Madrid iyo Chelsea waa kulan soo noqday xilli ciyaareedkii saddexaad oo xiriira 2022 labada kooxood ku kulmeen wareegga afarta Chelsea ayaana guuleysatay oo iska xadirsan finalka sanadkii dhaweeyay 2022 kana wax ku kulmeen isla wareegga 8 oo Real Madrid ay sidoo ogeen ku guuleystay 3-1 Stamford Bridge ku guuleysteen iyo kulankii dambe 3-2 laga guuleystay sidarteed markii saddexaad kooxdee ayaa guuleysan doonta xilli ciyaareedkan waxaan dhigi karnaa wax xilli ciyaareedka ugu fudud ee la saadaalin karo kulankan waayo Chelsea runtii foomkoodu aad u xumaaday tan kulankii ugu dambeeyay ay la ciyaarayeen Real Madrid laba toobare ciyaariyeen inta muddada يعني ciyaartooy aad badan ma la soo saxeeyeen kooxda qalalaasa iyo foodo weyn aad u weyn ba ka jirta arinta ugu xun waxa weeye magacaabista Frank Lampard ay u magacaabeen Lampard waxaan dhigi karnaa waa tababaraha yani kaliya aynu hubno inaanu ku guuleysanin Real Madrid xitaa in ka badan Graham Potter waa tababara soo maray Chelsea waa tababaraan aragnay yani awoodihiisa waa tababaraan garanayno يعني waxyaabaha laga filan karayo labada waxaan dhigi karnaa ugu xumeeyay Chelsea xil ciyaareedkan oo dhan ay sameeyay waxa weeye in Lampard muddada kooxda u dhiibaan taasna waa sababta aan kalsoonida sayidka ugu qabo in Real Madrid ciyaartan ay u fududaan doonto ama ay ka soo gudbi doonto kooxda Chelsea waa Lampard mu ahayn doq sax ah mu ahayn Lampard inay kooxda u magacaawdo xitaa laba kulan ha ahaatee wanarkina kulankii ugu horeeyay Wolves xitaa in laga guuleystay aan raay ahaanteeda kulanka Chelsea Real Madrid waa kulanka ugu fudud lana saadaalin karayo in ka Real Madrid qudhoodu aan ku jireen ciyaareedkoodii ugu wanaagsanaa haddana marka Chelsea loo eego aad bay u fiican yihiin kooxdu horyaalka way ka quusteen horyaalka way macaslaameeyeen horyaalka faraha ay ka qaadeen waana sababta Real ugu guuleysanayay kulankii ugu dambeeyay ciyaartooy badan oo Real Madrid u ciyaaraya foomkooda hoos u dhacay oo kamid yahay ciyaartooyda khadka dhexe Valverde oo kale Modric oo kale xitaa Karim Benzema laga yimaado labadii kulan ee ugu dambeeyay hat-trick oo dhalinayay guud ahaan xilli ciyaareedkan lama mid ah xilli ciyaareedkii hore waxyaabaha soo dhan waxyaabo ku kalifaya ciyaartooyada Real Madrid in kulankan ay yani ay laba kacaan oo ismuujiyaan gaar ahaan marka cadaadiska taageerayaasha iyo saxaafadda kaga imanaya in horyaalkii ay dayaceen oo 199 u jabka Barcelona ku jiro waxyaabaha ku kalifay Real Madrid inay kulankan iyo guud ahaan championka iyo Copa del Rey ku dadaalaan inay ku guuleystaan sadarteed raayahanteeda waxaan u maleynayaa kulankan in noqon doono kulan yani Chelsea ay isku dayi doonto inay soo saar sameyso oo weerarka ugu badan ay sameyso waana typical Frank Lampard
xilli ciyaareedadii uu haystay kooxda iyo kulanka ugu dambeeyay xitaa Wolves waxa aynu ka aragnay weerar ay adeegsadaan xitaa wax attention ama wax yani muhiimada aanay siin daafacooda waana dadka waxa ugu jeceshahay Real Madrid in ay la ciyaarto haddii Chelsea ay ka soo gudubto Real Madrid ruuxantii wuxuu noqon doonaa kadis aad iyo aad u weyn wuxuu noqon doonaa kadis lama filaana kadis dunida oo dhan kaga yaabaya ayuu noqon doonaa laakiin kubadda cagta wax kasta oo laga fishaa cid kasta way guuleysan kartaa Chelsea Chinese-koodu 0 maaha oo way xaqiijin kartaa kadis wayna iska soo xaadirin kartaa wareegga afarta laakiin caqliga iyo logic-ga iyo sida xaaladdu ay u socoto iminka Real Madrid ayaa u sharaxan inay ka soo gudubto kooxda Chelsea muuqaalkan intaas ayuu nooga yahay aad iyo aad isku mahadcelinaya asxaabay assalamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh